آه، بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك arrimaha gudaha, wasiirka waxbarashada, wasiirka biyaha, wasiirka gudoomiyaha baarlamaanka, taliyaasha ciidamada, garaadada, cuqaasha, salaadiinta iyo dhammaan odayaasha deegaanka iyo taliyaasha qaybaha. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay ha inooga dhigo mid ummadeennu ay ku kala badbaado shirka maanta aynu qabanayno iyo kulankaa ilaahay ha inooga dhigo. anoo ku hadlaya afkii taliyaha ciidanka iyo kaygaba waxaan amar u qabaa ama aan amar ku bixinayaa taliya qaybtuna way maqlayaan magaalada nabadgelyadeeda in gacanta aanu ku qabanayno ayaanu ballan qaadaynaa. nin hub wata hadduu dhigi waayana waa lagu dilayaa, waana laga qaadaya qoriga, waana laga xiraynaa. dhammaan ciidamadana deegaanka sidoo kale magaalada inaan hub la soo gelin baanu kala qaadanay taliyaha aaga, iyaguna dhici mayso. waxaanu ballan qaadaynaa meel kasta oo ciidan maleeshii ku urursan yahay ciidamadu tegayaan bilaysi iyo militariba amar baa la bixiyaa annagoo fulina amarka dawladda iyo wasiiradu ay bixiyeen iyo sharciga u yaalla dalkaba. waxaanu ballan qaadaynaa ciidan meel ku urursan inaanaan is eeganayn. odayaashan waxaanu ka codsanaynaa si nabaddu inoogu hirgasho oo nidaamku inoogu wanaagsaado oo ilaahay inoogu aqbalo teena nimankaa in idinkuna dhinaciina kala hadashaan. annagu la hadli mayna waanu gelaynaa idinkaa laakiin hadalka leh taana way isku ogaanana haddii ilaahay ka dhigo. magaalada habeenkii roondo culus baa saaran. wax aan cid aanaan ogeyn oo hub la mari kartaa ma jirto. xalay waa ogeydeen goob walba tiknikada ciidanka bilayska meel walba waa la mariyey. magaalada gacantaa ciidanku ku haynaya oo uu sugaya hadhow yay dhicin kama iyo iska horimaad. wixii dadweynaha dhinacyada jooga ama magaalada ha loo sheego inaan hub magaalada la soo mari karin. taliyaha qaybta amarka waa qabaa. mar labaad baan ugu celinayaa magaalada qori dhex mari kara ma jiro. waa la qabanayaa kadiidana waa la dagaalamayaa. waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga ilaahay haynoo aqbalo. maanta shirka aynu isugu nimi ilaahay ummadeenna ha kala badbaadiyo. idinkana waxaa qalbi wanaagsan iyo arrin wanaagsan baa laydinka falaya inaad la timaadaan. ilaahay haynoo aqbalo. waa mahadsantiin.